السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال halkani waa telefishinka SBC xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaana la soo gaaray waqtigii aad daawan jirteen war wixii aan idin ka haynay caalamka iyo guud ahaanba dhulka ay Soomaalidu degto. Qodobada ugu doorka roon leeyahay warkayga inta uu socdo aad ku daawan doontaan waxa kamid ah shir loogu gogol xaalayo shirweynaha loo qabanayo Soomaalida ee bisha May lagu qaban doono dalka Ingiriiska oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. dalka Djibouti waxa ka furmay shir ay ka soo qayb galeen 12 dal oo ay Soomaaliya ku jirto kaasi oo lagu gorfeynayo sidii kor loogu qaadi lahaa tacliinta sare ee bariga iyo bartamaha Afrika. madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo xubno ka tirsan labada gole ayaa gaaray deegaanada Sool joogto Xadhaadhan iyo Hagoogane oo ka tirsan Buuhoodle. xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqday in la hakiyay munaasabadaha iyo xusaskii loo qaban jiray 18 May oo ah maalintii ay Somaliland ku dhawaaqday inay gooni isaga taagtay Soomaaliya inteeda kale 1991 waxaana arintani lagu sababeeyay iyadoo ay haatan ku soo beegantay xaalad qalafsan oo dalka ka jirta. xisbiga wadani ee mucaaridka ee Somaliland waxa uu buraac ka muujiyay heerka cadaaladda iyo garsoorka ee Somaliland iyadoo ay xidhan yihiin mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi. daawadayaal qodobada dibadda waxaanu idinku haynaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu la kulmo dhigiisa waqooyiga Kuuriya iyadoo ay jirto xaalad kacsanaan oo u dhaxaysa labada wadan. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan inta warkaygan uu socdo hase ahaatee inta ayna u gelin faahfaahintooda ku soo dhawaada qadar yar oo adeega bulshada.